السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta naga mudan ee sida tooska noola socdo waxay soo gaadhay waqtigii aan idin soo tabin jirnay waxaan idinka haynay dalka gudihiisa iyo dabadiisaba warka waxay idin la socodsiin doontaa hadii Rabbi raali ka noqdo anigoo Xamdi Cabdi Sogsaga halka aad kala socotaana waa telefishinka caalamiga ee Badda Cas 24 TV xaruntiisa koowaad ee magaalada Hargeysa madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi Xildiid ayaa maanta dib dalka ugu soo laabtay kadib safar uu ku maqnaa dalka Djibouti. Ra'iisul Wasaaraha dalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa maanta dhagax dhigay qaybo cusub oo lagu soo kordhinayo jaamacadda ummadda qaybteeda Caabudu Waaq oo isxilqaan lagu dhisayo. madaxweynihii hore dalka Zimbabwe Robert Mugabe oo geeriyooday. madaxweynaha Koonfur Afrika oo ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo lagaga hortagayo kufsiga mar walba ka dhaca dalkaasi. Ra'iisul Wasaaraha cusub ee dalka Suudaan oo shaaciyay magacyada wasiirada cusub ee dalkaasi. daawadayaal intaasi waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorka roon leh imikana ku soo dhawaada qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan.